kulanti wacan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii xulashada raadiyowga barnaamijka xulashada raadiyowga waliba aan kugu daray sida salahan xulashada raadiyowga horta qof la yaqaan mihi marka banaanka joogo marka laakiin codkayga la maqlo un beedaahdaanuun saalahaan haddii aan bas raacoon ka dhaxadlo waxa la yidhaha codka halkeen ku maqalnay bay dadku isweydiiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa bogaadiyay doorashadii ka dhacday dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale raxmay waxa iyaguna doorashooyinkii Soomaaliland ka hirgalay bogaadiyay madaxda caalamka iyo sidoo kale wadamada ay ka mid yihiin Mareykanka, Denmark, Ingiriiska oo sheegay inay Soomaaliland gaadhay guul la taaban karo sidoo kale maxamed cabdi qaliilow dhammaan caalamka warbaahinta kala duwan ee caalamku waxa ay qorayaan bogaadinayaan doorashada ka dhacday dalka jamhuuriyadda Soomaaliland haday tahay wargeysyada telefishinada iyo dhammaan miidiyaha kala duwan ee caalamku xulashada radiyowga kulanti wacan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xulashada raadiyowga oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan Radio Hargeysa hagaag intee jeer baad daawada maqashay codkaasi tolmoon ee waliba mid ka mid ah hablaha ugu caansan idaacadda Radio Hargeysa inta dhinacayga fadhida waa Raxme Maxamuud Cabdi Abu Hureyra Raxme Abu Hureyra oo inta badan ka mid ah wariyaasha ugu caansan Radio Hargeysa codkeedana inta maqashay kale waa maqashay oo dadka Radio Hargeysa aad u dhageysteen Raxme markii hore waxa kugu soo dhaweynaya TikTok-tayda oo dad badan oo ku xiran ay iga codsadeen in Raxme Abu Hureyra inta la dhaha soo qabto Raxme way hor fadhida war maxamed cabdi qaliile iyo bahdiisa TikTok-ta aad baan u salaamayaa waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtaan waa mahadsantihiin maxamed kolley dhageystayaashii ama daawadayaasha halkan nagaga xidhan ee soo codsadayna waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin Raxmay adigoo yar baan deesaan ka warhayo waliba dee Raxme waa dadkii aniga igan idinla hadlay soo gacan qabtay soo caawiyay ka mid ahaa shaqaalihii sida weyn soo garab istaagay Raxmay adigu Radio Hargeysa goormad ku soo biirtay 2008 baan ku soo biiray 2008 ma sha Allah way maxaad ka xasuutaa xilliga barnaamijyadii ugu horeeyay lagu dhiibay 2008 barnaamijyadii ugu horeeyay la dhiibay waxaan ka xasuustaa barnaamijka maaweelada caruurta oo anaga iyo Cabdi Falaashaan halkan ku wada qaban jirnay kulley wasaaradda warfaafinta gaar ahaan idaacadda Radio Hargeysa marba qofkii ugu yar ayaa qaliilow soo saari jiray barnaamijka laakiin nasiibanaga anigoo bariga idinku yaraa imi ma qaban barnaamijkaas oo moogid aad iyo aad waxa laga yaabaa inaad anaga oo markaa barnaamijka wareejinay oo qof kale uu qabtay oo maxay hayday barnaamijkii uu maareysay hayna timida waa gartay sheekooyinkii kugu xiisaha badnaa ee Radio Hargeysa aad ka jeediso maxaad ka xasuutaa sheekooyinkii jacaylka ahaa ee TikTok-ta aan idhaahdo YouTube-ka haddii ay dib u baaraan daawadayaashu aan labadeenu soo wada jeedin jirnay Raxmay barnaamijka ugu xiisaha badan ee Radio Hargeysa adiga iyo Axmed Xuseen Cali Cawaale saaxiibkay baa sii wada daaya barnaamijkaas jimcuhu baxaa siiro talantaaliyo aad u qurux badan baad magaca barnaamijka ku furtaan bal dadka haddii aad xasuusto kulanti wacan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii xulashada raadiyowga barnaamijka xulashada raadiyowga waliba aan kugu daray sida salahan xulashada raadiyowga waan gartay Raxmay dad badan oo markay adiga muuqaalkaaga ku arkaan ama codkaaga ay maqlaan labadu waa kala duwan adigu dadku say ku arkaan markaad banaanada isku aragtaan dadka horta qof la yaqaan mihi marka banaanka joogo marka laakiin codkayga la maqlo un beedaahdaanuun saalahaan haddii aan bas raacoon ka dhaxadlo waxa la yidhaha codka halkeen ku maqalnay bay dadku isweydiiyaan laakiin marka stuudiyaha Radio Hargeysa oo kale ama idaacadda Radio Hargeysa ama wasaaradda warfaafinta dadka noogu yimaadaa inta badan waxay isweydiiyaan gabadhan ma Raxma sababtaa waxay dhahdaa codkaaga ka weyn gartay aad iyo dad maasantay aaladda TikTok ma isticmaashaa maalmo dhaweyd baan samaystay TikTok waxaan doonayay inaan bal hada muuqaalka iyo codka la isku barto laakiin wali
weli layskuma baran sababtoo ah wax badan baana weli soo gelgelinin waan la qabsan laayahay markaa insha allah idaacaddii bay igaga dhegsantaho waxaa isleeyahay talow yaa muuqaalkan inta laga daayo un qorsoodi ka dhiga aad iyo aad mad aragtay dad badan oo qaybteeda tiktok kugu soo mishiin garaynaya oo leh raxmo keena qoraalada mad aragtay adigu soo gaadhay qaliile hal muuqaal oo aad lahayd oo aan soo dhigay baa wuxuu noqday muuqaalkii ugu waalida badnaa ee la daawado adigoo markaa soconaya sababtoo ah waxaan la yaabay dhowr muuqaaloo aan leeyahan soo dhigay halkaa may gaadhin markaasaan fahmay inuu qaliille tiktokta uu xoog ku leeyahay waa gartay aad ad maasan tahay raxmaa bureera waa maxay fariinta u dambaysa ama hadalka u dambeeya diri lahay horta maxamed cabdi qaliile aad baan ugu mahad celinayaa bahdiisa tiktoktana waxaan leeyahay meel sare ha la gaadhsiiyo tiktoktaad maxaa kugu qoran raxmaa bureera hagaag daawadayaasha waxaan jecelahay kolley waa soo mishin garayn doonaa qof kasta oo taageero waa ama aniga taageeraya ama raxmad taageero waa inuu halkaa u falow gareeyo insha allah kor loo qaado waa halkaa hadalkaa ay dalbatee aad iyo aad baan raxmaa bureera oo ka mid ah wariyaasha ugu saamaynta badan ama codkooda iyo muuqaalkooda aan laysu aqoonin wariyaasha ugu codka macaan wasaaradda warfaafintaan anigu waa aqoonsanahay waa kuwa mahad celiniya mahadsanid walaalo aad iyo aad adigaa mudan maxamed cabdi qaliile